hagaag daawadayaal halkan aynu ku sugannahay waa magaalada Dilla ay saameeyeen daadad xoogag badan oo iyagu sababay khasaare iskugu jira naf iyo maal hase yeeshee markii aynu goobtani soo gaarnay ayaa waxaynu nasiib u helnay inaynu la hadalno dadka ay dhibaatadaasi soo gaadhay waxayna dadkaasi nooga warameen oo ay ka warbixiyeen sidii ay wax u dhaceen halkani waa gurigii barakaysnaa ee aan ku shaqayn jiray muddada 15 sano ahayd weeyaan bogcadani waa tii ka dhacday de masiibad dabiici ah oo rabbigayna abuurtay isagu awoodiisa ku fulinayay alxamdulillah ilaahay marka uu wax ridayo de ama masiibatul mawd uu ridaa ama masiibatu maal waxayna sidoo kale baaq u direen xukuumadda Soomaaliland oo ay sheegeen in ay ka sugayaan danaynayo oo war ubadkii 12 ahaa ee marxumadii ka tagtay halkay ku dambeeyeen waxbarashay u baahnaayeen dhaqaaleyn bay u baahnaayeen وأقون قلبي إن لو ناتيه وبهنادين والله قفز جدي ولي ما أركيه موقت كان هذا أركيه صار وأبها يستع عرور مالياتنا أو شيء إن أي عرو إن هو يدود دات كاسي ولا تجا إسلام مركاسين هالكاسي يكون جريوتي أبها عليا وحو عطسرية إن عرور مالياتين توهيو لقع ويردنا على وحبرشة وحنا وقعد صدي دمان الشعب كالصوماليات يمدحونها جمهورية الصوماليland موسى بيحي عبدي يكو حيجانكيس عبد الرحمن إسماعيل السيلعي سنة يعاومه وجبهيهين ضد كاسي iyaga waxaan ka codsan lahayn in bal wax kale ay noo qabtaan iska daayay qof hal beersan baa jaamacad 7 sano aan ku soo tabcaynay kiina waqtigiisii uu gaaray ilaahayna noloshii uu ku simay uu soo dhameystay aqoontiisii sidii walaalkayga hore u soo sheegay in ay professionkiisa shaqo noogu siiyaan hase yeeshee markii ay dhacdadani dhacday waxa goobtaasi soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo markaasi ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahaana musharax u taagan xilka hadda uu hayo ee madaxtinimada haddaba daawade haddii ay warbixintani ku soo gaadhay fadlan la wadaag asxaabtaada si ay u gaadho ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay ka joogaan caalamka مقالكني قروح بدن وحا إيجا عاوية صاحبكي باح بركالي أو آد وما هاد علنيو محمد أحمد موسى محمد جيكي